waxaa deeq lacageed oo ay soo direen jaaliyada reer Minnesota la soo gaarsiiyay Allah u naxariistay caruurtii uu ka geeriyooday Cali Bile oo kamid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buuhoodle isla markaana bilihii la soo dhaafay ku geeriyooday magaalada Garowe halkaas oo loo geeyay dhakhtar caafimaad. lacagtan ayaa waxaa lagu soo hagaajiyay Sheekh Cabdirashiid Xaaj Samatar iyo sidoo kale Sheekh Mukhtaar oo kamid ah culimadiinta ugu waaweyn magaalada Buuhoodle. deeqdan lacageed ayaa waxay gaadhaysay $1,300 waxaana soo diray jaaliyada Minnesota gaar ahaan Cali Maxamuud Diiriye oo kamid ah jaaliyada reer Khaatume ee dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota. deeqdan ayaa waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay qoyskan oo ka baxay Allah u naxariistay marxuum Cali Bile iyadoona lacagtan la guddoonsiiyay maamada uu ka tagay oo hadda haysata 3 caruur ah. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdirashiid Xaaj Samatar isagoona walaalaha islaamka ee jecel khayrka ka dalbaday in la soo caawiyo caruurtan agoonta ah oo iyagu u baahan kaalmo degdeg ah. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. marka hore Ilaahay baa mahad leh. mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa dadka muslimiinta ah u soo diray dadkan agoonta ah yar wuxuu soo diray halkan aan joognaa galabta waa gurigii agoontii ilma Cali Bile waxaan u wadnaa agoontii ilma Cali Bile la joognaa dadkaas waa dad miyiba laga ka yimi waxaan halkan ugu sidnaa lacag yar oo ayna soo gaarsiiso u soo direen jaaliyada reer Minnesota ee Soomaaliyeed una soo gaarsiiyay Cali Maxamuud Diiriye lacagtaas oo ah $1,300 Ilaahay waxaan u weydiinaynaa dadkii soo diray inuu miisaanka xasanaadka ugu daro meeshay ka soo saareen wax ka khayr lagu bedelo iyagana uga dhigo Rabbi subhanahu wa ta'ala dhaama shifan uga dhigo waxaan leenahay dadka muslimiinta wala la wada aragtaan kan waa ilmo yar waa indhala yahay wiilka yar aad arkaysaan waa indhala yahay waa shay weeye gabadhii dhashana waa xanuunsanaysaa horena waana inoogu sheegay kulay nabarna waa laga helay luguna waa laga hayaa waa saddexda ciyaalka yar weeye marka lacagtii aad nagu soo hagaajiseen dadnahay Cabdirashiid Xaaj Samatar iyo Mukhtaar Axmed Xaaj Faarax ee ahayd $1,300 insha Allah waxaan guddoonsiinaynaa galabta gabadhii caruurta dhashay oo ah nadiifo lacagta tiri walaal lacagtaas waa $1,300 insha Allah waxaan guddoonsiinaynaa gabadhii dhashay ilma Cali Bile oo ah nadiifo tiri walaal lacagta tiri $1,300 oo soo diray jaaliyada reer Minnesota soo diray waa ka guddoonay wadaadka wixii soo diray waa u mahad celinaynaa meesha soo saaray nadiifoy $1,300 oo midigtaan kaga haynaa tabaarana waa u baahanahay dadka agoonta abaanu nahay ilmaha ay 3 qof ilmaha shaybaha yahay ana aan xanuunsanayo mahad waxaan u naqaynaa wixii soo diray meeshay ka soo direen khayr iyo barako Ilaahay ha u daba mariyo insha Allah caruurtan haysta waa 3 laba wiil iyo gabadh gurigana hadda degan tahay gurigan hadda anigu nafahaantaydu joogaa waa caruurta yar raacayda ee miyiga jirta أنا مية خاصة حرنا حنون كي قدرتي أنا سوي كريم. وح برشة أيدي كم شيء. وح برشة أيدي تانولي متشرو وح ير. سقال شركة أوي. المحير اللي بشركة أوي عندها شيء بها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وبعد وحن لا تشوفنا عروتي أقوانت هاي المعالي بلا. وان فيلاين سورة ودنا الأركيي وريه هو يدنا المغليي. لعقتنا ويقعدي لا صدري. وسودي بعلي محمود ديرية إلهي سبحانه وتعالى وحنو يدين ويدينا ميشاد كسو بحسين وحكا خير إن إلهي سبحانه وتعالى شالي يدى من السودة وقبدله
waana baahan yihiin oo sida laydin sheegay ilmahan yari waa indhala yahay labada kalena waa caydi hooyadu waa xanuunsanaysaa bayd ma laho hadda miyiba xanuunka hooyada looga soo xareeyay caruurtan waxaan idin rajaynaynaa insha Allah taala wixii kale aad ku tari kartaan inaad ku tartaan caawimay u baahan yihiin in bara loo sameeyo hadda u baahan yihiin la soo xareeyo mar haddii ay waalidkii waayeen waad aragtaan oo suuradooda maanta wax walba idinku filan waxaad ku soo tari kartaan barakallahu fiikum soo caawiya ayaanu idin leeyahay wajazaakum Allah Cabdi Casiis Aadan Jaamac Buuhoodle.